Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal, halkan waa daalacan news channel. meel kastoo joogteen waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. xubinteen ugu horeysa waxaynu kusoo qaadanaynaa faallo aan halkudhig kaga dhignay saadaasha khilaafka siyaasadeed iyo hiigsiga mustaqbalka dowladnimo ee Soomaaliya. Toddobaadyadii maalmihii la soo dhaafay dalku waxa uu majaraha la galay cufnaan isjiidasho siyaasadeed, taasi oo sare u qaaday keenaanka khilaafkii hore u taagnaa. khilaafka ugu banaan wuxuu ka dhex taagnaa dowladda federaalk iyo maamul goboleedka Jubbaland, taasi oo calowga khilaafka kasii dartay ilaa ay ugu dambeyntii labada dhinac isku goodiyaan, islamarkaana uu dhinac kasta qaato go-aano iyo aragtiyo sii ololin kara khilaafkooda. xidhnaanshihii goornoorka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo iyo tallaabadii ay dowladda federaalk kusoo rogtay diyaaradaha isticmaala garoonka Kismaayo, falkii ay sida ku meel gaarka lagu joojiyey duulimadyadii tegi jiray Kismaayo, ayaana sababtay inuu khilaafku dhaliyo volkaano siyaasadeed oo aan la saadaalin karin halka uu ku caga dhigan doono. xeeldheerayaasha ayaanu rumaysan in loo baahan yahay in xaaladda la xakameeyo, islamarkaana la gaaro heshiis waara oo u danaha guud ee dalka. dib ugu yeelidda qarankeena burbure ayaana loo baahanya inay siyaasiyiinta muxaafadka kuwa mucaaradka iska kaashadaan, lagana gudbo go-aanka halka dhinac iyo mucaaradka siyaasadeed ee aan wax dhisi karin, iyo in ficil qaldan lagu saxo ficil hore u qaldanaa. siyaasadda iyo masiirka dalka waa lagu kala aragti duwanaan karaa, waxaase loo baahan yahay in la muujiyo dulqaad, isku tanaasul, iyo in xal kale loo raadiyo khilaafyada taagan. ilaan danta qaranka kuma jirto in la siyaanba qaado ismucaaradka iyo in khilaafka uu gaaro meel aan wax ka qabasho lahayn. tallaabada ee dowladda federaalka ku xayirtay safarkii uu madaxweynihii hore dowladda kumeel gaarka Sheekh Shariif uu ku tegi lahaa magaalada Kismaayo ayaana noqotay hadalhaynta khilaafka xilligan taagan, waana lagu kala aragti duwan yahay xayiraadaasi iyo hadeerjeedintii madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu kaga hadlay qadiyadaasi. iyadoo aan si guud mara dhacdadaasi ugu gudbayno, ayaa waxay xeelerayaashu siyaasadda rumaysan yihiin in xaaladdu gaartay meel xasaasi ah, islamarkaana loo baahan yahay inay siyaasiyiinta isku dhacsan ay isxakameeyaan, lana anbaqaado in la saxo qaladaadkii lagu kala aragti duwan yahay iyo in loo midoobo danaha dadka iyo dalkeena. dad badan ayaa rumaysan inay jiraan ashkaas daah gadaashiisa ka waranaya khilaafka taagan, kuwaas oo malaha u arka inay dantooda ku jirto inay isku dhacaan madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore Sheekh Shariif. dadaalo badan ayaa socda oo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka haatan taagan, iyadoo siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka iyo culamaa diinka wadaan dhaqdhaqaaqyo lagu qaboojinay xasarada taagan si uusan mugdi u gelin hiigsiga mustaqbalka dalkeena. sidoo kale qeybaha bulshada ayaa iyagana anfariir ka qaaday xasarada taagan, waxayna dhacdadaas u arkaan mid lala anfariiro maadaama aan xilliga la filaynin khilaaf noocaas ah, iyadoo horey lala jahwareersanaa khilaafyadii ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada horey ugu kala dhoobeen. diblomaasiyiinta dalalka saaxiibada ee taageerada ka geysta soo celinta dowladnimada iyo deganaanshaha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay mahdaal ka qaadeen khilaafkaasi aan dhamaadka lahayn ee u dhexeeya siyaasiyiinta Soomaaliya, iyadoo beesha caalamka hore ugu daashay xal u raadinta khilaafkii dowladda federaalk iyo doorashadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ee muranka dhaliya. si kastaba haatee, way adag tahay in la qiyaaso saadaasha siyaasadda hiigsiga mustaqbalka dalka, balse waxay dadka Soomaaliyeed ka wada midaysan yihiin inaysan marnaba ogolaan doonin in dib loogu noqdo fowdadii siyaasadeed ee laga dhaxlay burburkii qarankeena ama nidaam kala tilisnimo iyo mucaarad siyaasadeed oo wax burburinaya.